kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee channelkeena qodobada maanta ugu weyn waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dab xalay ka kacay magaalada Kismaayo gaana suuqiraha khasaaro xoogna ayaana ka dhashay waan idin soo gudbinaa wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre war ayuu ka soo saaray waxaa kaloo daawan doontaan Abdul Gaas madaxweynihii hore ee Puntland marna ka soo noqday Soomaaliya wasaare ayaa ka digay dagaal suuqyo oo ka dhacay dalka sabab la yaab leh ayuu sheegay in arrintaas ay keeni karto sababtaas maxay tahay waa daawan doontaan waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed Yeeka cid uu kala dab qaaday kulankooda cid fududeysay og dheeraad ayaa kaga hena saaxiibayaal oo aan idin soo gudbin doonaa warar kale ugu muhiimsan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dawladda federaalka ayaa gaaray Shabeellaha Dhexe waxay markaas ay ku dhawaaqeen deegaan muhiim ah markaas al-shabaab ay kala wareegayaan waxaa kaloo maqal doontaan al-shabaab ku dhowdu waxa ay digniin ay u qabteen aflaarta sacad gudood garoonka jaaradaha cad in markaas ay ku furin doonaan qaraxi waaweyn waa daawo doontaan saaxiibayaal iyo dawladda warwa ka soo saartay labaatan ku faafaan doonaa warar kale macluumaadka diblomaasiyadda fadlan haddii aad nooga soo subscribe kana soo gambalka kana furo nasi shargaray saaxiibadiin markasta joogan idinku kumatiga laagan inoo ribiya admaasantiin aan ku bilaawno magaalada Kismaayo wararka laga helayo magaaladaasi waxay sheegayaan in dab geysay khasaare hantiyeed oo xalay ka kacay suuqa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dabka ayaa ka kacay qaybta shidaalka ee suuqa Kismaayo waxaana ku basbeeray goobo ganacsi oo aad u fara badan sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waxaa nagu dhacay musiibo dab ah oo abaar 9 fiidnimo ka kacay suuqa Kismaayo gaar ahaan qaybta shidaalka ilaa iyo 7 baqaar ayaa gubatay maamulka Kismaayo ayaa noo soo gurmaday oo kaalin weyn ka qaatay ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo oo warbaahinta la hadlay laakiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay dhacdadan ayaa u tacsiyay ganacsada reer Kismaayo gaar ahaan kuwa uu khasaaraha ka soo gaaray isagoo markaas shaaciyay in ka maamul ahaan ay xanuunka ay qaybsanayaan waxaana xanuunka iyo dhibka la wadaagaya buurin ganacsada ee hantidooda markaas ay gubatay dabka ka kacay suuqa Kismaayo kuna fiday goobo ganacsi musiibada dabka waa mid ka mid ah arrimaha noogu wada baahan maareynta ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan oo madaxweyne ku-xigeenka dhankiisa wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo war qoraal soo saaray ayaa u rajiyay ganacsada Kismaayo bedel qeyb qaba waxaana murugada iyo xanuunka bala qaybsanaya dadka shacabka ah ee hantidooda ku waayay buuri musiibada caawa ka dhacday suuqa ugu weyn ee magaalada Kismaayo waxaana alla ugu bariyaa inuu bedel qeyb qaba ka siiyo hantida ay ku waayeen dabkaas waxaana alla mahadi ah in lagu guuleystay daminta dabka iyada oo aanay jirin wax khasaare nafeed oo markaas ka dhashay dabka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gubashada suuqa Kismaayo ayaa qayb ka noqonaysa dhibaatooyinka soo noqday ee markaas la kulmaan ganacsada Soomaaliyeed iyadoo markaas marar badan ay gubteen suuqyada waaweyn ee ku yaala gudaha dalka laakiin dadka qaar waxa ay leeyihiin madaxweyne Axmed Madow kama aan hadlin mana la qaybsan murugada dadka markaas hantidooda markaa ku basbaashay suuqa magaalada Kismaayo ee gubtay xalay dadka qaar ayaa tilmaamaya in qorshahan ay waxba uu ka ogyahay oo sida hadalku dhigayaan dabcan laakiin faafahintii macluumaadda arrintaas la xiriirta anagu ma aan xaqiijin karno waxay ku soo kordhaa gubashada dabkaas iyo khasaaraha markaasi hantideed halkuu leeyahay iyo faafahinta laamaha ammaanka waxa ay ka bixiyaan halkan aan ku soo gudbin doonaa saaxiibayaal idinkana waxay aragtidiina ka dhiibta markaana aan ku sii socono qodobada aad ku soo maqsheen barnaamijkeena wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xoga macluumaad dheeraad ayaa ka soo baxaya kulankoodii iyo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa hadisaabo uu ka dego haddaba inta fududeysay ay tahay madaxweynaha ayaa markii ugu horeysay tan iyo dib u doorashadiisii ku tagay magaalada Addis Ababa booqasho 2 maalmood qaatay 20 September ayuu booqday waxaana markaas ku soo baxay xiriirka labada wadan aad u xumaa ajendaha ugu weyn ee wadahadalada ayay warbaahinta Turkiga ku tilmaamtay inuu diradda ku hayay ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha labada dal ayaana markaas wadaagay heshiisyo kor loogu soo qaadayo xiriirka dhaqaale ka soo koobalay iskaashigooda arrimaha gobolka waxaana markaas lagu wadaa inay magacaabi doonaan guddi heer wasiir oo markaas dhaqangelaya xilligaas ay wadajir horaantii todobaadkan ayaa labada dawlad ee isku fahmeen kor u qaadista heshiiska sirdoon si wax ku oola beeraadeen oo ay ugu howlgalayaan argagixisada cadawga midiyay socdaalka wuxuu ka turjumayaa mudnaansiinta
siyaasadeed oo xasan sheekh maxamuud siinayo deris wadaag. labada mas-uul oo ka wada hadlay caqabadaha isdhexgalka iyo fursadaha guud ee ka dhalan kara iskaashiga ayaa markaasi isku waafaqay iyadoo markaasi la doonayo midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida dal walba in markaasi la kubciyo lana xoojiyo xiriirka dalalka. wallow fagaaro aan la iskugu dhaafsiin eedeymaha dal welibaba ka tirsanayo midka kale, haddana si xushmad leh ayay madaxdu isku weydaarsadeen wixii ay kala tabanayeen. booqashadii xasan sheekh maxamuud ee qaahira ayaa dowladda Itoobiya ku beertay walwal iyo cabsi ah in dalka Masar ka helay dowladda federaalka Itoobiya taageero siyaasadeed iyo saldhig military. taasi waxaa dheer in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u ololinayo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee gobolka uu geesmaray Itoobiya. arrinkaas wuxuu xoojiyay mala-awaalka la xiriira labada dal, wuxuuna gelin doonaa qalqal isbedel hoggaanka dalka kadib. farcelintii ugu horeysay Itoobiya ayaa noqotay dib u dhigistii safarkii July 2022 uu ku tagay xasan sheekh maxamuud Itoobiya, iyadoo markaas ku marmarsiyootay Itoobiya iyadoo wasaaraha uu aad u buuxo. taasi waxaa dhigay xadgudubkii arrimaha gudaha Soomaaliya kadib markii Addis Ababa ee gacan saar toos ah la yeelatay maamul goboleedyada federaalka ah iyadoo markaas aan lagala tashan villa Soomaaliya. si kastaba ha yeeshee, xogta ayaa sheegaysa in dalka Turkiga uu suurtageliyay in xasan sheekh maxamuud iyo Itoobiya iyo Abiy si foolka fool ah markaas arrimahooda ugu wada xaajoodaan si aan fursad loo siin shisheeyaha waxa u dhimi karaa nabadda iyo horumarka geeska Afrika. Turkiga ayaa taageero xoogan Abiy Ahmed ka siiya dagaalka Tigray oo markaas adeegsanayo diyaaradaha droonka Bayraktar, waana ku qasban yahay bari inuu markaasi maqlaan kara. diblomaasiyiinta gobolka qaarkood ayaa rumaysan aragti ah in Ismaaciil Cumar Geelle uu markaa arrintaasi ku leeyay khilaafka kadib markii dhacaydu ay Nairobi ay ku kulmeen caleemasaarkii William Samoei Ruto. labada aragti ayaa barbar yaala mid ka wada duwan oo qabta ninka adoonka shucuurta qowmiyadda Amxaarada uu balbahaar hor leh ku riday taliska Addis Ababa, halka villa Soomaaliyana ay ku yeeladahay in maamul goboleedyadii federaalka ay ka wada siiban karabaan faraheeda, taa oo qasabtay in dhinacyadu ay dulba ay soo raadiyaan. qabiil dhexe channelkan ayaa daawanaysan saaxiib haddii aad noqoto subscribe kuna soo gabalka fadlan sii share gareeya saaxiibadii markasta joogaan idinku commentiga like and reebaya aad baad u mahadsantihiin. markana Cabdulla Gaas wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ka digay dagaal sukeeye. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdulla Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay in dagaal sukeeye ku dhaco Puntland haddii la isku dayo muddo kororsi loo sameeyo ciidaha dowladda. maamulka Puntland ayaa ah kan kaliya ee aan wax muddo kororsi sameyn, iyadoo oo maamul goboleedyada dalka uu midkiiba hal sano ku daray mid sharciyeed ee baarlamaanka iyo mid madaxweyne goboleedba. balse Puntland ayaa waxay ugu duwan tahay in muddo xileedka hay'adaha dowladda uu yahay 5 sano halka maamul goboleedyada kale yihiin min 4 sano. Gaas oo soo noqday wasaare Soomaaliya ayaa sheegay in Puntland hal mar ay muddo kororsi soo martay markaasna uu ku dhacay dagaal aad u sukeeya. Puntland ku darsho mar bay soo martay 2001 bay ahayd Cabdullahi Yuusuf baana sameeyay wixii ka dhacay waa la ogaa. sifir waa dagaal sukeeye baa abuurmay ayuu madaxweynihii hore Puntland sidaas sheegay. Cabdulla Gaas ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta sida weyn ugu digaya in Puntland lagu daro muddo kororsi haddii taasi dhacdana iyo si doonto qallaasi siyaasadeed iyo amni xumo baasan oo dalkaasi ama maamulkaasi ka dhinac kale. Cabdulla Gaas ayaa tilmaamay in doorashooyinka golaasha deegaanka lagu qaban karo qof iyo cod haddii ay dowladdu markaasi ka go'aansay inay markaa hirgeliso doorashooyinkaasi. madaxweyne Siciid Dani ayaa markaasi aan la ogeyn qorshihiisa kale ee ku aadan muddo kororsiga, iyadoona iminkaba waxooga dheeraad ay soo baxay sheegeen in uu damacsan yahay. wararka ugu waaweyn ee gabagabada dhinaca kale sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Gudlaabe ayaa markaas magacaabay guddiga qiimeynta khasaarihii ka dhashay markaasi qaraxyadii gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, asaguna ilaa ay wasiiro xildhibaan iskugu jira magacaabay. arrintan ay ugu gol leeyahay sidii markaasi ay u qiimeynayaan baaxadda khasaaraha hantideed ee ka dhashay weeraradaasi ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta Magaray. gudahaan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka kala socoteen daawadayaal waan intaa. haddii aad cusub tahay fadlan subscribe oo soo gabalka furo oo si share gareeya saaxiibadii markasta joogaan si uu gaaraan muuqaalada halkan aan ku soo gudbino. aad baad u mahadsantihiin.